asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno arrimaha la xiriira tobanka dambe iyo bisha barakaysan ee ramadaan. barnaamijka waxaa inoogu marti ah sheekh shukri caydiid oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee si weyn lagu yaqaano geyiga soomaaliyeed, isla markaana aynu wax ka weydiini doono bisha barakaysan iyo weliba tobanka dambe ee ramadaanka, waxyaabaha la xiriira ee axkaamta ah iyo weliba fadliga iyo cibaadada ku jirta bisha barakaysan ee ramadaan. sheekh soo dhow. waan dhaway xasan maxamed mukhtaar. waa tahay ustaad, aad baan markaas ugu faraxsannahay inaan kula kulanno, isla markaana aan kula yeelno waraysi gaara maadaama aynu ku jirno bishii barakaysanayd. bal waxaad nooga warbixisaa fadliga ay leedahay tobanka dambe ee ramadaanka. waad mahadsantihiin c n a t v. bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaan ila cala alظaalimiin. waa mahadsantihiin. bishan barakaysan ee ramadaan ilaahay baa qur-aan kaga sheekeeyey subxaanahu watacaala fadliga ay leedahay. bishan waxa weeye waa bishii qur-aanka lasoo dejiyey. waxaa ku jira sida aan ka sheekayn doono hadduu alla idmo habeen ka khayr badan kun bilood oo laylatulqadri la yidhaahdo. marka gaar ahaan tobanka dambe aad iyo aad bay usii fadli badan yihiin. fadli fara badan baa lagu sheegay oo nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. fadliga ay leedahay waxaa ka mid a nabigeena calayhi salaatu wasalaam tobankan dambe inuu aada u dadaali jiray. xadiid laga warinayo umuna caaisha iyo asxaab fara badan, nabigu calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe wuu nooleyn jiray. ictikaafkan wuu ku dadaali jiray, aad buu ictikaafi jiray, wuuna nooleyn jiray. arrintaasna waxay tusinaysaa ahmiyadda ay leedahay bisha ramadaan gaar ahaan tobanka dambe. waa tahay habeenka leylatulqadriga waktigee uu ku aadan yahay marka la fiiriyo bisha ramadaanka oo kale, isla markaana fadligiisa iyo diinta maxaa kaga soo arooray? waad mahadsantaha xasan macal mukhtaar. habeenka leylatulqadriga ilaahay baa qur-aan ku sheegay subxaanahu watacaala bisha ramadaan inuu ku jiro, laakiin habeenka uu yahay lama garanayo. ilaahay baa og subxaanahu watacaala, laakiin xiliga loogu rajawanya waxaa weeye waa inuu ku jiro tobanka dambe. maxaa yeeley nabigeena calayhi salatu wasalaam tobanka dambe aad buu dadaali jiray. dadkana wuxuu amray ama asxaabta inay dadaalaan tobanka dambe, oo wuxuu yidhi qofkii doonahayo leylatulqadriga ama dalbahayo ha ka raadiyo oo ha ku dadaalo tobanka dambe. xadiis saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ku sheegay qofkii rabo leylatulqadriga ama dadka ku dadaalahayo ha dalbaan leylatulqadriga tobanka dambe, gaar ahaan tirada isdheer. tirada isdheer waxa weeye waa 21, 23, 27. haddii bishu markaa 30 ay ku dhammaanayso 29. marka habeenadaasa muxuu ahaa aad loogu rajawan yahay, waana la qariyey. xikmadda loo qariyey ilaahay baa subxana wa tacala, lakin waxaa ka mid a dadka muslimiinta ah maadaama cibaadadu mar walba ay tahay arrin muhiima inay ku dadaalaan cibaadada oo habeen gaar ah. haddii la sheegi laha la habeenkaa wey leylatulqadrigu, dadku waxay samayn lahayn habeenkaa un ba iska tala saaran lahayn. marka waxaa loogu talagalay habeenka leylatulqadriga waxa loo qariyey waa in bisha dhan la dadaalo. marka tobanka dambe baa loo rajawan yahay, gaar ahaan tirada isdheer 21, 23, 27. wuuna noqon karaa habeenada horena wuu noqon karaa. marka laakiin xilliga ugu rajawan waa xilligaas. haddii uu qofku haleelo habeenkaas oo kale ajirka iyo xasanaadka uu helayo. waa mahadsan tahay. habeenkaas waxa uu ka khayr badan yahay 1000 bilood, yani waa in ka badan 80 iyo dhowr sano, 83 sano. habeenka qofka hadduu ilaahay waafajiyo subxaana watacaala isagoo oo cibaadaysanayo oo muxuu ahaa ilaahay baryaya subxaana watacaala, wuxuu u dhigmaa cibaadadii 30 waxaan leeyahay 80 iyo dhowr sano cibaadad buu u dhigmaa. marka cimriga ummadeennan cimri qaalibkooda waa 60 iyo 70 inta udhaxaysa. nabigeena calayhi salatu wasalam 63 buu ku geeriyooday, abubakar sidoo kale, cumar sidoo kale. marka ummadeena cumrigeeda qaalibkeeda waa 60 iyo 70 inta udhaxaysa. habeenka marka haddii ilaahay uu waafajiyo subxaana watacaala ruuxu cimri uusan lahayn cibaadadeed buu kasbanhayaa. qur-aankana waa laga sheegay, ilaahi uu ku sheegay subxaana watacaala ina anzalnaahu fi leylati اlqadri. waa habeenkii lasoo dejiyey qur-aanka, leylatulqadrigaasa lasoo dejiyey. yani qur-aanka markii hore maxfuudka laga soo dejiyey isaga oo muxuu ahaa wada socdo. marka beytulciza baa lagu soo dejiyey. intaa ka dambeysay tartiib tartiib baa loo soo dejinay, laakiin isagoo wada socdaa markii hore habeen leylatulqadri ah, bisha ramadaan habeen leylatulqadri ah baa lasoo dejiyey. waa tahay maadaama bishii aynu ku guda jirno ramadaanka, dadka qaar soonka ma awoodaan, oo haddii tusaale ahaan oo kale ay awoodi weydo haweeneyda xaamilada ama uurka ah iyo midda ilmaha nuujinaysa oo kale bishan barakaysan, muxuu yahay xukunkooda? dib ma u soomayaan
mise halkaasay siduu uga tegay buu ay ku dhaafayaan? waad mahadsan tahay xasan macalin mukhtaar. waa masale muhiima, su-aal aad iyo aad muhiima weeye. ilaahi subxaana watacaala soonka uu inagu waajibiyey. soonka markuu inagu waajibiyey waxaa jira dadka qaar oo muslimiinta ka mida soonka aan awoodi karin. islaanta hadday xaamilo tahay ama ay tahay mid oo ilmaha nuujinayso, waxaa dhici karta inaysan awoodi karin soomka inay soomto. marka haddii aysan awoodin karin inay soomto, ilaahay wuxuu ruqsa u siiyey subxaana watacaala inay afurto. nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ina allaha wadaca can ilmusaafiri, qofka musaafirka wuxuu ka dejiyey alla subxaanahu watacaala asawma wa shadra salaah aw kama qaal. gabadha murdacadana sidoo kale wa can ilxaamili aw ilmurdac asawma aw siyaam. gabadha xaamilada iyo midda nuujinaysana wuxuu ilaahay ka dejiyey maadaameysan awoodi karin, waa haddayn awoodi karin. hadday awoodi karto gabadha iyadoo uurla ama ilmihii nuujinayso inay soomto, hadday awoodi karto way soomi, waajib waxaa ku ah inay soomto. laakiin haddayna awoodi karin way furaysaa. kadib marka ay furto, hadhow waxaa looga baahan yahay oo waajib ku ah markay awooddo inay soo qallayso soomki. soomkii way soo qallayn, waxa weeye waana waajib inay soo qallayso. ma jiraa wax kale oo dheeri oo ay bixinayso oo cunto oo kale masaakiinta la siinayo? waa mahadsan tahay. haddii gabadhii ay afurto soomka intay awoodi weyda, hadhow way soo qallayn baa qallaha isagu waa waajib. haddii marka culimmadu waxay dhahaan gabadhu nafteeda ay muxuu ahaa u afurto oo nafteeda cabsi ay u cabsanayso, hadhow qallaha unbaa laga rabaa. haddii laakiin ilmaha ay caloosha ku sido ama ilmahan ay nuujinayso cabsidiisa ay u afurto, hadhow qallihii waxay raacinaysaa wax la yidhahda mud raashin bay bixin. yani maalin walba raashinkaasi intee dhan yahay qiyaastiis? qiyaastiis adigu mud weeye, waa shooda waxaan idhaahno shood raashin abay bixin oo raashinka hadda dadku ay isticmaalaan sida bariiska iyo geleyda iyo masagada, raashinkaasay bixinaysaa mud ah. marka lagu qiyaaso xagga kiilowga iyo kilogramka meeqa kiiloy noqonaysaa? waxay noqonaysaa kilogram marka la yidhaahdo waa 500 oo garaam ama 600 meelahaas bay culimadu ku qiyaasa. waa tahay. sidoo kale weli bishii ramadaan iyo su-aalaha la xiriira haddaan hore ugu sii socdo, qofka tusaale ahaan oo kale isaga oo weli suxuuranaya oo kale, haddii waagu baryo ama la aadaamo, muxuu noqonayaa xukunkiisa oo kale? waa mahadsantahay, su-aal wanaagsan weeye. qofku isaga oo muxuu ahaa suxuuranaya haddii uu waagu ku baryo, waxaa la rabaa marka uu dareemo inuu suxuurtii iyo cuntadii joojiyo. haddii muxuu uu sii wato waagii oo bariyey, haddii uu sii wato waxaa waajib ku ah inuu soomkaa soo qalleeyo. waxaa la mid ah isagoo suxuuranaya haddii isaga oo ninku islaantiisa la dhaqmahayo oo reerkiisa isticmaalaya, haddii sidoo kale waagu ku baryo, waxaa iyagana waajiba inuu joojiyo. haddii uu sii watana soomkaas waxaa waajib ku ah inuu soo qalleeyo. ilahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala markuu ka hadlahayey kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswad. xadiis saxiixa nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ina bilaalan yuadinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yuadina ibnu ummi maktuum aw kama qaal. yani macnaheedu waxa weeye cuntada iska cuno oo muxuu ahaa cuntadiina waad cunaysaan waad cabaysaan ilaa fajarka saadiqa laga gaadho. fajarka saadiqa mar haddii la gaadho cuntadii halkaasi ku joogsanaysaa. waxaa jirta marka dadka qaarkood in ay deliishadaan xadiid oo ku yaala sunan abi daawud. xadiidkaas waxaa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam xadiid laga sheegay, haddii mid idinka mid ah uu maqla aadaanka, idaa samica axadukum annida, mid idinka mid ah hadduu aadaanka maqlo, walinaau calaa yadi, isagoo weelkii gacanta ku hayo ha iska sii wato oo cuntadii cunhayo ha sii wato ilaa dantiisa uu ka dhamayso. xadiidkaas culimada qaarkood ama dadka qaarkood waxay u deliishadeen qofkii haddii waagi uu ku baryay ama aadaankii dambe lagu aadaamo inuu iska sii wadanhayo. xadiidkaas culimadu way ka hadleen, waxayna ku fasireen waa haddii aadaanku uu ka hormaro fajarka. yani dadka qaarkood waa dhici kartaa inay macnaha ay aadaamaan waagii oon berin, fajarka saadiqoon gaan. aadaankaas hadduu yahay waa diyaar, cuntadaada waa sii wadan. laakiin haddii uu kusoo beegmo aadaanku fajarkii saadiqa hadduu kusoo beegmo, maya halkaasaad ku joojinaysaa. marka qofku hadduu cunto cunayo oo lagu aadaamo wuu sii wadan karaa haddii aadaankaasi uu ka hormaro waktigii salaad subax dilaacaysay oo kale? waa tahay. sidoo kale waxaa jirtaa cadayga oo kale waktiga ramadaanka, isagu maxay diintu ka qabtaa, ma la cadaysan karaa? waad mahadsan tahay. cadaygu waxa weeye dhibaato male, waa la iska cadayan karaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid laga wariyey, wuxuu ahaa saxaabiga xadiidkaa sheegay, wuxuu yihi nabiga ayaan waxaan arkay in aana koobi karin muddo fara badan isagoo sooman oo haddana cadayanhayo. marka cadaygu dhibaato male. culimada barkood waxay yidhaahdaan cadaygu hadduu qoyan yahay ama laan qoyan ruux hadduu ku cadayanhayo dhacaan iyo waxbay
yeelanaysaa. marka dhacaankaas dee haddii uu galo soomkiisa waxba gaarahayo. marka cadi iska ingegin, laakiin hadduu qofku ku cadaydo oo dhacaan iyo waxba toona aan lahayn dhib male. qaarkood culamadu waxay yidhahdeen haddii la gaadho niska dambe duhurka wixii loo gaadho waxaa fiican qofku inuusan cadayanin oo cadaygii uu iska dhaafo. sababta waxay leeyihin xadiid baa jira nabiga laga wariy alayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamahayo qofka afka luunka kaga yaala lakhuluufu fami saa'im adyabu cinda allahi min riixil misk. yani qofku markuu sooman yahay afkiisa waxaa marhayo luun baa marhayo, luunkaasaa ilaahay agtiisa kaga wanaag badan miskiga. yani waa ammaano la ammaanay. marka waxay leeyihin hadii niskii dambe la gaadho oo qofkii cadayga u isticmaalo waxay arrintaasi keenaysaa luunkii la ammaanay inuu meesha ka baxo. marka saa darteed waxa fiican bay leeyihiin niska dambe haddii la gaadho, yani zawaalka marba haddii la gaadho in cadaygu qofki iska dhaaf saasaa fiican. balse ma jebinaya haddii maya ma jebinayo, soomkii ma jabayo. waa tahay haddii qofka uu toobin isa saaro oo kale ama uu jirkiisa dhiig ka soo bixiyo wax ma yeelo ma u geysanaysaa? qofku haddii uu istoobo oo muxuu ah toobin intii la saaro dhiig uu ka soo baxo soomkiisa waxba ma noqon hayo. maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid laga wariyey oo saxiixa, nabiga ayaa istoobay isaga oo muxrim ah oo haddana sooman, soomkiisina uu iska sii watay. xadiid kalaa jira oo nabiga alayhi salatu wasalam uu ku sheegahayo qofkii isaga oo muxuu ahaa sooman la toobo, kii toobay iyo isagiiba inuu soomkii ka jabayo. laakiin xadiidka culimadu waxay yidhahdeen waa la nasakhay, waa mansuuq, oo xadiidkan dambe aan sheegayna baa lagu nasakhay. nabigu alayhi salatu wasalam isagoo sooman oo haddana muxrim ah ayuu istoobay, soomkiisina waa sii oo watay. xajka jooga. waa tahay sidoo kale bal ka waran irbadda oo kale qofka sooman uu qaadanayo oo kale dhakhtarka haddii uu u qoro daawo oo irbado lagu durayo bisha barakeysan ee ramadaan qofku ma isticmaali karaa irbadahaas? waad mahadsan tahay xasan, su-aal muhiima weeye. qofku haddii isaga oo muxuu ahaa sooman la irbadeeyo, irbaddu way kala tahay oo labay u qaybsantahay. mid waa irbadan caadiga oo qofka lagu daweynhayo, midna waa irbadan tan faleenbada ah ee qofka jirkiisa awoodda gelinayso sida faleembooyinka nafaqada oo kale. irbaddu tan caadiga la duray hadday ta wax dhibaato ma lahan, laakiin tan faleenbada ee qofka jirkiisa awoodda gelinayso taa soomka way jebin. waa tahay weli su-aalo kale ayaan markaasi doonayaa inaan si daawadayaasha uga faa'iidaystaan aan fursaddan kaaga faa'iidaystoon ku weydiiyo. dhiigga marka la bixinayo kale bisha barakeysan marmarka qaar dadka qaar dhiig la-aan ayaa ku dhacda oo isbitaalka oo kale waa lagu soo qayli waxaa lee hebel wuu xanuunsan yahay dhiig in loo shubaa la rabaa. marka qof sooman dhiig ma bixin karaa? su-aal muhiima weye, waad mahadsan tahay. qofku asagoo sooman haddii dhiig laga shubo, dhiiggaa laga shubayo soomkii ma jebinayo. wuxuu la mid yahay toobinkii hadda aan sheegaynay ee nabigu soobay calayhi salaatu wasalaam. marka maadaama oo muslimiinta inay saacideeyaan ay tahay qof muslima oo walaalkaa ah, haddaad dhiig u shubto soomkaaga waxba ma noqonayo. haddii aad awoodi weydo soomka hadhow waa masale kale oo soomkii aad awoodi weydo dhiig markaas ka shubto tabardarra ay kuu dhacdo, taa waa masale gaarkeeda. laakiin dhiiggan lagaa shubay soomkii waxba ku noqon maayo. waa tahay mataqa oo kale qofka hadduu mataqo isaga oo bisha ramadaan ku jira ma ka jabayaa? mantagu wuxuu kala noqon hayaa labo. qofku haddii uu iska mantago isagoo muxuu ah aan af gacan gelinin oo wax markaa uu ku mantaga aan isticmaalin sida wuxuu isgeliye oo kale oo uu mantagii soo dhaafo soomku ma jabahayo. laakiin hadduu iska mantajiyo soomkii wuu jabi. maxaa yeele nabiga alayhi salatu wasalam xadiid laga wariyey man daracahu lqay-u falaysa calayhi qadaa. qofkii uu soo gujiyo ama uu ka qaala noqdo mantagu wax qalaa lagama rabo. laakiin waman istaqaa fa calayhi lqadaa. qofka hadduu iska mantajiyo isagu iska keeno qalaa laga raba, soomkiisina waa burahaya. waa tahay xanjada oo kale la calaliyo ama la isticmaalo ayadu ramadaanka wax ma u dhimaysaa oo ma jebinaysaa? waad mahadsantahay, waa su-aal muhiima. xanjadu haddii ay tahay xanjooyinkan hadda la isticmaalo muxuuha dhadhan kale, qofka xanjadii intuu ruugo dhacaankeeda iyo waxeeda uu saa ku laqo soomkiisu wuu jabahaya. maxaa yeelay joofkiisa waxaa gaadhay wax aan la rabin inuu gaadho oo wixii la diidahay soomka jebinaya baa gaadhay, soomkiisu wuu jabi. laakiin xanjo iska caadi oo dhadhan iyo waxba toona aan lahayn hadduu qofku iska calaliyo oo wax gudihiisa gaarahayo oo kale aanu jirin, oo macnaha uu soo tufay candhuufti uu candhuufti tufahayo oo dhacaan marka xanjada ay leedahay oo ama macaan ama dhanaana uusan gudaha u gelayn. xanjo iska caadi ahoo muxuu ahaa wax dhadhan iyo waxba toona aan lahayn uu calaliyo, xanjadiina uusan laqin, dhacaankeed ahoo muxuu dhadhan lana uusan laqin, soomkiisa waxba ma noqonayo. anoo weli su-aashaas tix raacaya cuntada oo kale gabadha karinaysa ma dhadhamin kartaa oo inay cusbo leedahay inay ku badan tahay dhadhanka cuntada ay diyaarinayso afurka? waad mahadsan tahay. dhadhanka cuntada haddii qofkii uu dhadhamiyo isla markaana uuna laqin oo gudihiisa wax gaadhay uusan jirin, joofkiisa wax gaadhay, soomkiisa waxba ma noqon hayo. laakiin waa laga fiican yahay oo inuu iska ilaaliya fiican. maxaa yeele waxaa suurtagala inuu wixii ku cararo. marka dhadhanka carabka keliya lagu dhadhaminaya, carabka wax lagu dhadhamaya taaso dhibaato ma leh.
soonka waxba ma yeelayso. waa tahay tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan salaad tahajud iyo taraawiixi iyo aad bay dadku ugu dadaalaan. qofkii asaga oo salaad faradla lagu leeyahay salaadahaasi sunnada ama tukan karaa? waad mahadsan tahay xasan, waa su-aal muhiima. qofku haddii lagu leeyahay salaad faral ah, waxaa waajib ku ah qofku markuu mukalaf noqdo inuu salaadaha ilaahay uu tukado sida ay tahay inuu tukado. haddii marka salaado qalla lagu leeyahay, waxaa u fiican qofkii intuu isku mashquulin lahaa salaado sunno ah oo tahajud ama taraawiix inuu salaada faralka a tukado. way asixi haddii isagoo faral lagu leeyahay uu tukado sunnihii way ka asixi, laakiin waxaa u fiican isaga si uu faralkii dimadiisa ama qoortiisa uga beri noqdo inuu tukado salaadii faralka ahayd. salaad sunna hadduu tukado way ka asixi, laakiin waqtiga uu sunnaha tukanayo qallihii lagu lahaa faralkaa inuu iska bixiyo oo iska gudo, saasaa u fiican. waa tahay salaadahan taraawiixiga iyo tahajudka qofku mid ka mida ma tukan karaa? haddiise uu tukado taraawiixdii, tahajudkii oo kale booskiisi ma u buuxinaysaa? dadka qaar oo kale waxay sameeyaan tobanka dambe oo kale taraawiixday joojiyaan oo waxay tukadaan tahajudka. marka ma laba kale salaad baa mise habeen bay wada gelayaan oo booska way isku buuxin karaan haddii mid ka mida la tukado? waad mahadsan tahay. salaada taraawiixda waa salaad sideeda sunna oo la rabo in la tukado. haddii qofkii uu dib dhigo waa gaarkeeda oo taraawiixda halkii habeenka ilaa cisho markii la tukado, salaada cisho markii la gaadho salaadii taraawiixda waa diyaar, waqtigooda halkaa wey. haddii marka intuu iska seexdo qofkii hadhow uu soo kaco taraawiixdii iyo witirkii u wada tukado way u noqonaysaa. laakiin witir keliya haddii uu hadhow tukanayo oo taraawiixdiisa tukanaynin, witirkii unbaa fadligiisii ajirkiisa way helaya, taraawiixdii ma helay. waxaa fiican qofku inuu taraawiixdina tukado, witirkana uu tukado. marka witirka oo kale waa salaad noocee oo waxay ku kala duwan yihiin taraawiixda iyo witirka? waxay ku kala duwan yihiin. taraawiixdu waxay khaas ku tahay bisha ramadaan bay khaas ku tahay. witirkuna habeen walba waa la tukadaa, ama ramadaan ha noqoto ama habeen kale ha noqoto. marka farqigaasa udhexeeya oo waxa weye witirku habeen walba waa jira ramadaanka iyo keyrkiiba. marka ma jira tirada xagga tirada oo kale inay kala duwan yihiin? waad mahadsan tahay. xagga witirka tiradiisu sida culimada u badan yihin waa 11 baa ugu badan. hal ragcad buu ka bilaami, 11 baana uu ku egyahay. waa 1 3 5 tiradaas dheer buu ku socdaa. marka hal ragcad ruuxi wuu tukan karaa witir, 3 wuu tukan karaa, 5 wuu tukan karaa ilaa 11. taraawiixda iyadu way ka duwantahay. taraawiixdu nabiga calayhi salaatu wasalaam tiro go-an oo laga hayo ma jirto oo taraawiixda intaasaa la tukan ah. laakiin waxaa jirta culimadu sida asxaabta oo kale inay tukan jireen 20 ragcadood oo sayd cumar asxaabta intuu jamciye 20 ragcadood. culimada madaahibtana laftoodu sidaasu may qaateenoo waxa weeye 20kaas ugu yaraan tukadaan. haddii qofkii markii 20 uu tukado waa sax oo intii saxaabta ay tukan jireen markii dambe. haddii uu qofkii ka yar tukado oo muxuu ahaa ama uu 8 tukado ama uu 10 tukado ama uu 4 tukado, xataa 2 ragcadood hadduu tukado taraawiixda qayb ka mid ay noqon. laakiin ma una wada tukanin taraawiixdii, maxaa yeelay taraawiixda cadadka ugu badan ee muxuu asxaabta laga wariyey waa 20kaas. haddii uu ka yareeyo marka ajirkii wuu heli oo qof taraawiixda wax ka tukada wuu noqon, laakiin meesha ugu badnayd ee muxuu ahaa ma uusa gaadhin. waa tahay weli aanu su-aalaha kusii soconaya. qofka tusaale ahaan oo kale sooman markii ramadaanka kadib waxaa jirta wax la bixiyo oo sadaqo oo zakaatulfitriga ma lasii bixin karaa hadda inta bisha barakaysan ee lagu guda jiro? waad mahadsantahay, waa su-aal muhiima. nabiga calayhi salaatu wasalaam ramadaanku marka ay ka dhiman tahay 2 ama maalin markay ka dhiman tahay xadiis saxiixa oo laga hayo waa lasii bixin karaa, oo maalin iyo 2 markay ramadaan ka dhiman tahay waa lasii bixin karaa. waxaase fiican marka ramadaankii uu dhammaado oo habeenkii ciidda la gaaro intaan weli salaada ciidda la aadin in la bixiyo xilligaasa fiican. haddiise ay dhacdo in bisha dhexdeeda lasii bixiyo oo 2 beri ama 1 maalin iyadoo ay ka dhimantay ka hor haddii lasii bixiyo, culimada sida shaaficiyada oo kale sida ay qabaan way asixi kartaa, waana lasii bixin karaa. waa tahay. marka waxa la bixinayo iyo nooca uu yahay lacag oo kale ma lagu bixin karaa u dhiganta qiimihii cuntada la bixin lahaa? waa su-aal muhiima, aad iyo aad bayna u wanaagsan tahay. xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii la bixin jiray nabiguna uu asxaabta amray raashin buu ahaa. raashinkaasi timir ha ahaado, xinda bahasha qabandida la yidhahdo ha ahaado, shaciirta ha ahaado, raashinkaasaa la bixinayey. waxaa raashinkaa la mid a culimadu ay qiyaas qaateen raashinka kale hadda la isticmaalo sida bariiska oo kale, midhaha ahee firida ah, kaasaa la bixin jiray. xilliga nabiga calayhi salatu wasalaam lacag way jirtay oo lacagta ugu qiimo badnay dahab iyo fidla jirtay, laguma bixin. wax kale oo muxuu ahaa u dhigma raashinka isaga oo qiimo oo lagu bixiyana maysan jirin. saa darteed waxay noqonaysaa ma asaxayso mana banaana in lagu bixiyo qiimo. maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam
xilligiisi raashinkaasaa lagu bixin jiray, asxaabtiina raashinkaasaa la amray, raashinkaa un baa lagu bixini. waa tahay timirta oo kale iyadu ma la adeegsan karaa oo ma la siin karaa? timirta waa lagu bixin jiray xilligii asxaabta haddii ay tahay quutulqaali beledka markaa la joogo wax laga quuto oo raashin ahaan loo isticmaalo hadday tahay timirta waa la bixin. xagga qiimada haddii aan ku soconno madaahibta afarta saddex waxay isku raacsan yihiin inaan qiimo la bixin karin, sida muxuu maalikiyada, shaaficiyada, xanaabilada, saddexda wax qiimo lama bixin karo. laakiin axnaafta oo kale waxay qabaan iyagu in raashinkii lagu bixin zakaat fitrigii qiimo in lagu bixin kara, lacag lagu bixin sida lacagta oo kale ha. saan horeyba u sheegnay lacagta xilligii way jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam. xikmadaha ku jira marka zakaat fitriga bixintiisa ma aha uun miskiinka in la quudiyo oo wax la siiyo bese ma aha. culimada qaar ba waxay usoo daliishadaan ay leeyihiin lacagta uga faa'iido badan qofka faqiirka. xikmada ku jirta miskiinka ama faqiirka in la quudiyo keligii ma aha, sida culimada inoo sheegeen xikmado kaloo badan baa ku jiro. xikmadaha waxaa ka mid a raashin marka la bixinayo zakaat fitriga lagu bixinayo, raashinkii dad baa qaadi, dadka qaada waxaa la rabaa inay wax ka helaan oo qaadida ay ajir kaga helaan ama ujro ay ka helaan. dad baa miisi oo dadkii u qaybin, dadka ayagana waxaa la rabaa inay meesha wax ka helaan. waxbaa meelaha ku dhecdhici oo ku daadaadan xayawaanka sida quraanjadii wax meelaha jooga inay raashinka isticmaalaan. lacag hadday tahay laakiin kii bixiyey iyo kii la siiyey bay iska noqonaysaa dad kale oo markaa meeshaasi ka faa'iidahayo saa u badan ma jirhayaan. marka saas darteed qofka waxaa fiican wixii nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam inuu ku gaabsado. marka dadka hadda qurbaha jooga oo kale waxaa dhacda in badan inay lacaga soo diraan oo dhahnaan lagaga bixiyo. dadkaas kale waxaa u fiican lacagaha inay amraan in raashin lagu iibiyo, raashinkaana sidaa loogu bixiyo zakaat fitriga halkii lacagtii oo sideeda zakaat fitri lagu bixin lahaa. waa tahay dadka qof kasta ma la siin karaa? yaase laga rabaa inuu bixiyo? qof kaste oo muslim yaa laga rabaa inuu bixiyo? yaase la siinaya oo dadka la siinaya waa dad noocee? waa mahadsanta, waa su-aal muhiima. waxaa laga rabaa qof kasta oo muslim ah oo bisha ramadaanna qeyb ka soo gaadhay, bishan shawaalna qeyb ka soo gaadhay oo qoraxda ay u dhacday, awoodi kara habeenkaa ciidda iyo maalinkeeda wixii uu isticmaali lahaa, dharkaa uu xidhanhayay iyo gurigaa uu degan yahay iyo cuntadaa uu cunahayay isagii ciyaalkiisa dadka nafaqada ay ku waajibtay wax dheeraad ka ahayso qofkaasay waajib ku tahay inuu bixiyo. dadka uu ka bixinay isaga naftiisa wuu ka bixin, cid kasta oo nafaqadeedu ay ku waajibtayna wuu ka bixinaya, sida ciyaalkiisii, islaantiisii, aabihii iyo hooyadii oo muxuu aan waxba haysanin oo isagu biilay hadday jiraan dadkaasu ka bixinaya. qofka la siinayo cidda la siinayo waxa weeye waa cidda ilahay uu qur-aanka ku sheegay subxaana wa taala 8 sinf ee qur-aanka lagu sheegay. wixii laga arko un baa la siinhaya, waa sida dadka fuqarada oo kale, masaakiinta oo kale, dadka muxuu ahaa socotada oo kale, musaafiriinta ah, dadkaasaa la siinaya. marka qofka la siinayo waa qof muslim ah baa la siinaya oo macnaha 6 ee kamida 8 qur-aanka lagu sheegay mid kamid ah. waa tahay dumarka oo kale waxaa jirta inuu ku dhaco dhiig bisha ramadaan oo kale, ayagu ma soo qalaynayaan oo ma la mid tahay sidii kuwii ilmaha nuujinayeen oo kale? gabadho haddii uu ku dhaco bisha ramadaan dhexeeda uu ku dhaco ama bilowgeeda ku dhaco ma soomayso. soomka inay soomta xaaraam weye, laakiin soomka way soo qalaynaysaa, hadhow inay qalaysaa waajib ku ah. salaada way ka bedelanta, waa taqaanaa salaada ma soo qalaysa gabadho, laakiin soomka way qalayn. soomku sanadkiiba hal mar buu yimaadaa, wax soo noqnoqonaya mar walba ma aha, sanadka gudihiisa soo laalaaban hal mar buu yimaadaa. marka way soo qalaynaysaa, qalahan baana laga rabaa iyada. waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay. bal bisha barakaysan 10ka hore iyo 10ka dambe ilaa iyo 10ka dhexe fadliga ku soo arooray iyo weliba kelmadaada ugu dambeysa ee muslimiinta uga faa'iideynayso fursadan. waa mahadsan tahay. bisha ramadaan saan hore u sheegnay fadli fara badan baa lagu sheegay dhammaanteed. 3 qaybood bay u qaybsantahay, waa 10 hore iyo 10 dhexe iyo 10 dambe. waxaa la sheegaa 10ka hore inay tahay muxuu ahaa raxmad inay tahay, 10ka dhexdaana inay tahay waxa la yidhahda makfira oo dembi dhaaf waa loo dhaafaa ummadii, 10ka u dambeysa waa cidqu min annaar. marka saasay bisha fadligeedu u yahay. dadka muslimiinta ah ee ilaahay uu soo waafajiyey subxaana wa tacaala bishan waxaan u dardaarmaynaa naftayda iyo naftiinaba inaan ka faa'iideysano. dadka waxa weeye ma hubaan inay gaarhayaan, qofka hadda ilaahay uu waafajiyey ma hubo inuu gaarhayo ramadaanka kale. mar haddii uusan hubin inuu gaarhayo waxaa fiican bishan hadda uu ku jira inuu ka faa'iideyso 10ka dambe gaar ahaan laylatulqadriga, si uu macnaha u waafaqo inuu ilaahay baryo subxaana wa tacaala. haddii aad waafaqdo laylatulqadriga oo ilaahay ku waafajiyo, ama marka ilaahayba aad baryaysa ducaysanaysa laylatulqadriga aad raadinayso, waxaa la rabaa ducooyin nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo caaisha ay weydiisay, allahuma inaka cafuwun kariimun tuxibul cafwa facfu canii. ducadaasaa la rabaa inuu ku ducayso. marka waxaa loo baahan yahay inaan ka faa'iideysano dhammaanteen. waa fursad laga yaabo dad badan oo hadda jooga inaysan dib u soo marin. dadka qaarkood waxaa dhacdo
inay ku dadaalaan bisha ramadaan taraawiixda iyo tahajudka inay ku dadaalaan witirka iyo niska dambe gaar ahaan oo 10ka u dambaysa haddana salaadii faralkeeda salaadii subax aysan usoo kicin oo jamaacad ayna ku tukan ama guriga ay ku tukadaan qofkii haddii salaadii faralka ahayd uu ka tago oo salaadii subax isagoo xaloo dhan tahajud u taagnaa oo taraawiix tukanayo oo witir tukanayay salaadii subax haddii uu ka tago uuna tukanin musiibo weyn wey dhibaato weyn yani salaada faralka ah waxaa la rabaa 5 salaadood hadday u suroobi karto qofki inuu jamaaca kusoo tukado iskaba dhaaf inuu ka tage marka faa'iido ma helayo qofkii haddii salaadii faralka ahaydna uu ka tago tii sunnada ahaydna uu dhaho waan ku dadaalhayaa marka waxaa u horeeya ee qofka uu ilaahay ugu dhawaanay subxaana wa tacaala waa salaadaha faralka ah salaadii faralkeed markuu meel saaro tahajudkii iyo taraawiixdii saasaa la rabaa inuu wax u wado marka sunnihiina waan tukan faralkiina waan ka tegi sida dhalinyarada barkood ay sameeyaan intay caawa dhan soo jeedaan salaadii subax markay imaanaysa ay hurdo iska seexdaan taas lama rabo arrin aan fiicnayn wey waa tahay ugu dambaystii intaanan soo gabagabaynin hal su-aal aan jeclahay inaan oo dheeri ah kugu darsado dadka inta badan marka la gaaro ramadaanka waxay aadaan xajka oo way soo cumraystaan maxay tahay xiriirka ka dhexeeya in bisha barakaysan cumrada la cumraysto ma waqtigeeda mise waxaa waaye cibaado jecel waad mahadsantahay waa su-aal muhiima cumradu waqti kuma xidhno ramadaan iyo bil kale toona kuma xidhno 12 bilood bil kasta waa la cumraysaa laakiin dadka muslimiinta ilaahay wax siiyey subxaana wa tacaala haddii bisha ramadaan muxuu ahaa ay cumro ku daraan ramadaankii iyo taraawiixdii iyo qiyaamuleylka cumro hadday ku daraan oo ilaahay awooddaa u siiyey subxaana wa tacaala arrin aad iyo aad u wanaagsan weeye marka xiriirka ka dhexeeya waa iska garan kartaa oo iyagoo bishii ramadaan soomahayo oo qiyaamuleylkii samaynayo oo muxuu ahaa taraawiixdii iyo witirkii la imaanayo haddana beytkii ilaahay ee karaamaysnaa xurmada lahaa haddii ay soo booqdaan oo ay soo cumraysaan arrin aad iyo aad u wanaagsan wey waa tahay aad iyo aad aan kugu mahad celinaya ustaad waad mahadsantahay adaa mudan xasan maan sida wanaagsan waa tahay daawadayaal intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa wareysi gaar ah oon la yeelanay ustaad sheekh shukri caydiid oo asagoo ka mid a culimmada soomaaliyeed islamarkaana aynu wax ka weydiineynay bisha barakaysan iyo weliba xugmada iyo weliba arrimaha la xiriira aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawadashadiina